haweenweynaha dega koonfurta Hargeysa iyo degmada Salaxley ayaa cabasho u gudbiyay golaha guurtida Somaliland kuwaas oo ka cabanaya buug uu qoray wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida Somaliland Siciid Cali Jaamac ayaa sheegay in qayb kamid ah haweenweynaha dega Somaliland ay u soo gudbiyeen cabasho isagoo arintaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxaan haynaa cabasho ay noo soo gudbiyeen qayb kamid ah bulshada oo haweenweynaha kamid ah waana waajib xaqna waa loo leeyahay bulshada oo cidii cabanaysa ee golaha cabasho u soo gudbisa in la qanciyo oo cabashadooda hadday tahay mid golu wax ka qaban karana oo golu wax ka qabto haddii kaleetana la tilmaamo cidda ku hawlan ama hawsha shaqada ku leh marka waxaan doonaynaa guddi baan u qabanaynaa magacyadoodan berito ayaan ilaahdii ilaahay garto halkaan ka sheegi doonaa cabashadaas waxa weeyaan waa cabasho ay soo jeediyeen haween kamid ah haweenka Somaliland golaha guurtida Somaliland ayaa maalinimada berri ah u ballamay inay guddi u saaraan cabashada si ay u dirsan una dhageystaan waxa ay ka cabanayaan haweenkaasi ee la xidhiidha buugga uu qoray wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland عمر دولين maalintii shalay ahayd madaxweynaha Somaliland waxa uu kulan magaalada Wajala kula qaatay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya in kulanka siyaabo kala duwan baa loo fasiray fikradaha qaar waxay ku doodeen in muuqaalkii Somaliland uu hoos u dhacay adiga sideeba kula muuqda way iska hadlayaan oo soo dhaweynaya madaxweynaha waan ku amaanaya inuu Mustafa Cagtar la fadhiistay iyagu meeqaamkan sare sheegaya halku yaalay iyaga soo sheegi doona meeqaamkan beentii un buu ahaa been baa meeqaam sare ahayda meeqaam sare jiray oo halkan ka sareeyay weligeed ba muu jirin meelaha Yurub markay noogu yimaadaan wasiiradii madaxda oo anaga tareemada ayaanu kaararka u jarnaayeen ka bixinaa hodheer yar oo noo keenay bay nagu shirayeen ayay dadka kula shiraan oo jaaliyadaha dibadda bay u tagaan nimankan baarlamaanka Yurub wax weyn hayno gidaarkan imika hadaan imika halka suuqan taagay baa suuqiya janibiga hadaan imika suuqeero halkan tago wada kale Yohanneska ta la yiraahdo oo soo ku taala waxaan tagay saddex xildhibaan oo meelaha iska taagtaagano haddaan telefoonka kugu dhibaad la hadli karayso oo ma hadda sida meesha qofkii wax loo wada daba cararaamo qof umada ka sareeyo maaha waxa weeyaan marka meeqaan soo jiray muu jirin halkan ka sareeyay marka waan soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa oo kale inuu meelaha hareeraha in la arko Puntland iyo Somaliland oo iyagoo wada hadlaya in la arko Soomaaliya iyo Somaliland oo wada hadlaya macnaheeduna ma aha in cidibana waxay xaq u leedahay ka tagto cidiba laakiin waa in cid waliba beenta ka tagto beenta waa in cid waliba ka tagto ismaan Umar Doolin wuxuu keeni karaysa ama Soomaaliya iyaduna waxeeda ka go'san karaysa waxeedana u hagaajin karaysana Somaliland baa ugu number 1 sano wamka galaysa maanta hadii la yiraahdo halkeeba degan halkeeba dadkeedu watan la qaybiyay markay magacayda loo kala soo go'aasan la midayn karaaye وصل مدين كراد دواق قري كسمن تهي ودواقي سلانتي ليس سلامة شرام بيننا يدل خلبوا عمي ما يوحيو كان الجيل قبل حيو الله يراو هروح مكان اللي كوسي جمال دور إني اسمه دوينه لأن ما يو صفر يسوون بكسمن تهي به لكن مقام كعو سود وين نقولن كاس كلن عم بوها مصطفى عكسر يسقى بسببين نجحجة يسقى عدول بين نجحجة مقدسي يسقى نجحجة وحويا ودقان كاني ومشي هوجود الصومالي إلا وضح الروح حقيقة الحسين اللي يشوفها اللي ما هو النوارو ومقام سر أي مكان لقاري ما أنت كهربا مقام سر اللي مقاري ما أنت كهربا اللي بدينهم بالكلالة يلا بالفدين اسمان عمر دول واحد كله شري شير دوان كوسا حرمي مقالة جيبوتي ودن كجيبوتي شركة قبائل كلا دوانية الصومالية gaar ahaan deegaanada kala duwan iyo dawladaha ay la degantayba waxa laga hadlayay sida Soomaalidu ugu yeelan lahayd isbedelada ka socda geeska Afrika shirkaas ma kula tahay inuu Soomaalida mowqifyada ay kala taagneed uu isbedel ku keeni karo wuxuu shirku ku saabsan dabada xayaa shirarda manoo dhici doonaane oo horta bal Soomaalida tina wada hadla la hadli maayo Mareykanka ina aqoonaya hadii lahayd mayo Itoobiya walaalaheena wixii uu meesha ka saaraya iyo carabta ina aqoonsatay tuulo yar oo Ingiriiska ku taala ina aqoonsato maayarkeedina aqoonsaday wixii uu meesha ka saaraya waxa weeye horta waxa kala baqanina wada hadla isa soo hor fadhiista
ninkayna xogayaha waan dhegaysanaya xisbiga wadaniga oo dadka maanta haddii la haydmayo hadday dee meeshan talaba ku yeeshaan wax weyn dadka bedeli kara u eg waxa weeyaan war adiguna ka joog waxaanaad wada iyo Soomaaliland talaad meel walba ka soo qufulayso war adna Soomaalida indhaha ka lalinaysaa cadowgeena koomad waa Soomaalida ka joog oo haddii la haydmayo aynu Soomaaliland oo horta aynu cadar wada hadallo Soomaalida hore waxay u tiri aynu wada hadallo aynu heshiino waxa lagu heshiinayaa ama kala go'an noqdo ama federalism ha noqdo ama ha noqdo haddii la haydmayo in dadka badda cod laga qaado la ilaa ma go'aysaan iyo waddanka ma kala jaraya ama ha noqdo inay noqoto warbal Hargeysa caasimadda ha laga dhigo iyo waddanka galigiisa madaxweynaha Muuse Biixi ha noqdo Soomaaliya wada hadalka wax wasaaraddii hore ee dhaqanka iyo dalxiiska jamhuuriyadda Soomaaliland muddo sanada iyo dhowr bilood ah ayaan wasaaradda ka soo shaqeeyay muddo aad u dheerna waxaan ahaa macallin jamhuuriyadda Soomaaliland in badan ka soo shaqeeyay dugsiyada sare kuwa dhexe iyo jaamacadaha dalkaba sanadihii u dambeeyay 6 sanadood ee u dambeeyay waxaan wax ka dhigayay jaamacadda Hargeysa jaamacadda Badar iyo jaamacadda la yiraahdo Maxadul Caali waxa kale oo aan ka soo shaqeeyay manhajka dugsiyada sare ee Soomaaliland kolkii la qorayay macallimiintii wax ka qortay baan kamid ahaa waxa kale oo aan muddo 10 sanadooda ka hawlgelayay xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan maadada af Soomaaliga inta haddaan ka gudbo baryahan dambe waxaa caado noqotay milgaha taariikhda iyo dhaqanka birmageydada ah ee haldoorada Soomaaliyeed inaan loo aabayeelin oo nin waliba sidoo doono iyo aragtidiisa uu qoro halkan waxaan bulshada ugu soo bandhigayaa buugan oo la yiraahdo ina Cabdillah Xasan ma sheekh buu ahaa mise shaydaan ma sheekh buu ahaa ayaa qoran mise calaamatu su'aal xagga sare buuga waxa kaga qoran sooyaal sawirka buuga ku yaalana waa taaladii Sayid Maxamed Cabdillah Xasan ilaahay qabriga ha u nuuree maanta waa meetiyo inaga hooseeya buuga magaciisuna waxa weeye ina Cabdillah Xasan ma sheekh buu ahaa mise calaamatu su'aal baa saaran calaamatu su'aashu maxay noqon kartaa wax kasta oo lagaga jawaabo oo aan sheekhnimo iyo islaamnimo iyo dhaqan suuban iyo diin midnaba xiriir la lahayn way si qarsoon tahay dadku soo way garanayaan waxa loo jeedo waxa buugan qoray ninka dhawaan wasaaradda dhaqanka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka looga dhigay wasiirka ee la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax ee loo yaqaano Guri Barwaaqo buugani waa buug dhammaan taariikhdii Sayid Maxamed Cabdillah Xasan lagu tirtiray waa buug lagu bedelay oo lagu maydhaamay oo lagu majra habaabiyay taariikhdii halgamaagii gabayaagii ummadda Soomaaliyeed ay taqaanay waxa taa ka sii daran maanta waa meeti xabaal buu ku jiraa waa meel ka dhac marka aynu nahay dad islaama oo wada dhashay oo meel ku wada nool oo walaala ah inaynu dadkeenni meetida ahaa ee xabaalaha ku jiray taariikh fool xun oo diinta islaamka meel ka dhac weyn ku ah inaynu u qorno oo waliba waqti la geliyo oo waliba lacag la geliyo oo waliba la faafiyo wuxuu buugani yaalaa dhammaan goobaha waxbarashada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland jaamacadaha maktabadahooda la dhigay ardayda soo koraysa akhrista kuwa imika jooga akhriya iskuuladu yaalaa
meelo badan baa lagu faafiyey anigu buuggan kuma difaacaya qabiilnimo sayidka tol iyo reernimo ku difaaci maayo laakiin waxa la yidhi xaashe in libin ka xistay xumihi waa yaab waxa buuggan ku qoran 22 cutub oo aan loo aaba yeelin taariikhdii sayid maxamed cabdulla xasan 22 ka cutub erey kamidii taariikhdii sayidka kuma saabsana ma soo koobi karayo waxa ku qoran haddaan mid iyo laba ka taabto waxa ku qoran sayid maxamed cabdulla xasan 7 dumar ah ayuu mar kaliya wada qabay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaynu ognahay sayid maxamed cabdulla xasan maanta dadka aftiinka u jooga ee isaga ku abtirsada qoysas way dhaafeen dalka dibadiisana way ku dhaqayeen gudihiisana way joogaan waa dad aynu xiriir leenahay waa dad aynu wada dhalanay marka talkan loogu qoray sayid maxamed cabdulla xasan 7 dumar uu mar qura wada qabay oo uu meher la'aan ku qabay sharaftii ay lahaayeen dadka ku abtirsada sayid maxamed cabdulla xasan waxa ka jawaabi doona ninka wasiirka looga dhigay wasaaradda warfaafinta ee halkan ku qoray marka buuggan aan akhriyay tuduca koobaad marka buuggan aan akhriyay bogga koobaad ilaa bogga u dambeeya damiirkaygu uu isiin waayay qof miir qaba oo wax kala garanayo islaama ayaa sidan wax u qoray marka uu leeyahay sayid maxamed cabdulla xasan 7 dumar uu mar wada qabay ma isaga u meheriyay ma isaga manxiis u ahaa muxuu ku cadaynayaa tuduc kaliya ayuu ku hoos qorayaa oo uu marxaati uga dhigayaa oo uu leeyahay 7 qabaa naaga xora tuufalaa darane haddana waxa jira tuducan oo si kala isaguna ah oo dulucdiisu tahay 7 buu qabaa naaga xora tuufalaa darane waa dacaayadana waxa lagu gartaa had iyo jeeraale waxaad helaysaa wixii wax ka duwan baad arkaysaa tuduc ka duwan baad meel kale ku arkaysaa bay ahayd isagaa caddayn doona markhaatigeedii baa laga doonayaa taariikhda soomaaliduna saamixi mayso taasi waa qodob isaga oo taariikhdii sayidka baabiiyey oo meelka dhac weyn ku sameeyey oo aan loo dul qaadan karin waxa buugga ku qoran haddana waxa uu gadaafo iyo meelka dhac weyn ku sameeyey qayb ka mid ah caarka haweenka Soomaaliland haweenka milgaha iyo sharafta leh hooyooyinkeena ee kuwa inoo dhaxaya ee kuwa aynu la dhalanaya gabay foolxun oo aan habboonayn in lagu qoro bugaagta sidan oo kala iyo in bulshada loo gaarsiiyo toona ayuu tusaale u soo qaadanaya waliba gabayga uu tusaalaha u soo qaadanaya wuxuu oranayaa hebel baa tiriyay hebel ayaa loo maleeyay inuu tiriyay hebel markii la weydiiyeyna waaba ku xilo furay inaanu tirin wuxuu oranayaa gabaygani soo waxaan hablaha ciida gala soo hubsaday maaha soo waxaan habeen iyo dharaar hoy la galay maaha soo waxa markay hilib arkaan soo hirmaca maaha soo wuxuu shantu hugurdhaliya hawatalay maaha sida ninka buuggan qoray oo ku faahfaahinayo waxa uu leeyahay xaaji guleed nin la odhan jiray ayaa gabayga tiriyey ayaa loo maleeyey buu odhanayaa loo maleeyey inuu tiriyey dabadeedna waa la weydiiyey wuxuu ku xilo furay inaanu gabaygan tirin waa hagaagay gabay lagu xilo furay inaanu ninkii loo maleeyey tirin maxaa looga dan leeyahay in halkan ummadda loogu qoro waxay naga qarsoon ninka buugga qoray waxa uurkiisa ku jira ujeeddadu uga socdo ayaa ka weyn way ka weyn tahay sheekadu intan hablaha ciida gale ee sida foosha xun gabayga foosha xun ee milgaha iyo sharafta iyo maamuuska hablaha meelka dhac weyn kaga ah halkan ku qoran hablahaasi waa hablaha dhalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa hablaha dhalay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Ciise Jaamac waa hablaha dhalay cali maxamed waran cadde wasiirkii hore wasaaradda arrimaha gudaha haddii siyaasiyiinta aan hakiyo waa hablaha dhalay culimada jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa foolaadka u ah waa hablaha dhalay Sheekh Dirir waa hablaha dhalay Sheekh Maxamed Aadan oo wada garanaysaan waa hablaha dhalay Sheekh Ismaan Cali Xuseen waa hablaha dhalay Sheekh Maxamed Cali Gadle saamixi maysa taariikhdu wuxuu ninkaasi uga gol leeyahay
iyadoo laga gungaaro mooyaane ma habboona in buuggani bulshada dhexdeeda uu sii yaallo oo aynu daawanno aragina way la soo hadleen arrinkan maxaad ka tiri yiraaheen waxaan waxbaan soo hubsanayaa haddii aan buuggii arkoon kan cilaa la tagayna de wixii loo tuujubay oo sheegay buuggan shaqo isku malaha waayo buuggan ninkaan Cabdalla Xasan ayaa buduulimaad ku yahay ninkaasoo ninka meel la qaniyo arkayay lagu sheegay Cabdalla Xasan sheekha weliga mayu dabna wuxuu yiri in Cabdalla Xasan wuxuu sameeyay arrimaha caynkaasa wuxuu sameeyay arrimaha caynkaasa waxaana jirtay ninka dumarka wax yiraahda dhaqamada caadi dhowr nin buu soo qaatay oo aan ahayn beesha ciidagalo qura uu leeyahay ninkaas gabayaasu tiriyay waxa lagu xukumay magtii qofka ninkaas kaasu tiriyay waxa lagu xukumay magtii qofka ninka gabayaaga laga saaray ka gabayaaga laga saaray dad badan caynkaas ayuu soo sheegay marka isagu buu yiri muxuu kaga duway muxuu sheekh ku noqday وأركض بونتان قبل أخذ بونتان مركا نكى أنا بعد الناس تشوفين بدل لي أبوها هدول الناس تشوفينه بعد يوم من قد كلمة الناس كنت هلا سنبر هدول كان لي يبا قبل يوم وين بكون يلا أو كان ركل أيتريين أو هذا يجي أحد الرجال علي نكى الناس عم بالبوس وقاتل هو سوى ذا قادم واي وما كوفه كان الناس كنت له وحنا قلت رجي عن أوجين قبيلة تريسا صار لو جرحي يسأل محل لو جرحي واي وكاسا مركي أرنتو تاي ومدي برنامج كعسري يعني يرسو عسو حنلاقي هاي بوق آخرستا إن
sheekhii berigii dumarka laayey ee gelinkii hore soddobada dumara dilay ee magaalada daba socotay kii dambana la wada ogaaday maxaa inuu qalad ku dilay ee aan raggii dumarka wax ku sameeya keenin markhaatiyaalo keenin tii oo kale ayay arrintani u eeg tahay oo dadka dee magaranaysa waxa kaloo warbixin ku helay amba uu tiifiga afkiisaba ka sheegay 3 goor iyo isagas qabteen imtixaan buu ishiday jaamacad buu iga reebay oo maxkamaddu markay qof markhaati ka qaadayso ninkaa miya wax isugu timaadee maa loolan jiray markaa waxaan leeyahay dadkii waar wax gaar ah oo ninkan ku qabsano ma jiro halkanna waxaa ku jira gabiyo badan saan bara ninkaasaanu eedeynayey ibraahim xisi haddaan ahay waxaan leeyahay ciddii kale waxay iga dhex tusaysaay kaalay ilaahay mahadiisa weeyaan waxa weeye afkaagu inta ku ammaankay baa wax loobsadaa waxbaa la hubsadaa buuggii waa kaa jamhuuriyadda somalilan oo heegan u ah bulshadooda inay la wadaagaan hadba dareenka iyo wixii tabashaya jira maanta waxaanu nimi xarunta baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan waxaanu la kulannay gudoomiyaha baarlamaanka somalilan mudane baasha cabdi faarax baasha maxamed faarax halmaam hadalka kuma jiro horta arrintu waa bilow intii hore waxay ahayd uun warbaahinta oo si dadban qolo waliba dhankeeda ay wax uga tabiso laakiin iminka madaxdii qarankeenna ayaa gacanta ku haysa gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u sharaxnay buuggan oo uu qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda somalilan guri barwaaqo buugga horta waxaa la yidhaahdaa sooyaal wuxuu buuggu ku saabsan yahay dhammaantiiba sayid maxamed cabdilla xasan taariikhdiisii halgan tiisii wadaadnimo tiisii aftahannimo iyo dhammaan sooyaalkiisii oo dhan buuggu waa buug dhinac keliya ka raran waa buug runtii dhammaanba lid ku ah taariikhdii halgamaagii weynaa ee sayid maxamed cabdilla xasan sayid maxamed cabdilla xasan looma aanayn kara soomaaliya waayo halkuu ka dagaalamayey waa taleexna waynu garanaynaa khariidadda ay ku taallo waa la hayaa marka ma aha halgamaa qabiil taariikhdiisa loo baabin karo ma aha qof keliya taariikhdiisa xukumi karo ma aha ummadda af soomaaliga ku hadasha ee soomaaliyeed way taqaanaa sayidku wuxuu ahaa horta waxaanu sheegayaa maxamed axmed bedel sharmaarke dabkaad horisay eed ku kicisay dhalinta dumarka arrintaasi arrin looga baahan yahay waddanka ma aha waana isku qaldanay qofkaad adu wax ka sheeganaysa inaad isaga waxu sheegto ayaa ka habboon laakiin bulshada dumarka inaad wargaarsiisa aan jirin dee aday foolxumo kugu tahay waxaana leeyahay arrintaasi aad iyo aad baanu uga xunnahay dumarkana waxaan leeyahay buuggan waxaa la qoray 2010 waqtigeediina maba joogno wasiirkeedina waa kan maanta ila fadhiya waxaan leeyahay arrintaasi arrin ujeedadiisu caynka ay tahay maaha anuu buugga dabiya dacar waana khariyey waxaad ku sheegaysana kuma arag iyo wax ku qoran toona marka waxaan leeyahay dumarka ciidanka leh idinku horta raalli iska ahaada war unba idin soo gaadhay warkaasna nin wax ka tabanaya wasiirka ayaa meesha hadalka soo geliyey manay ahayn wuxuu wasiirka ka tabanaya inuu la yimaado ayay ahayd laakiin hadduu isiri hablaaceeda kale ee ku xaal doono waxay la tahay waa arrin qalada marka ninka maxamed axmed bedel arrintaas wuu ku qaldan yahay wixii isaga kala gudboonaana muu hagaajin waxa weeye fidno kale inuu sii kiciyo ay abuuri karta arrintan taasina waa tanu ka feejignaanahay